gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore ee dalka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shacabka Soomaaliyeed la wadaagay fariin hambalyo ah oo ku aadan bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan in caawa bilato ilaahay naga dhigo bil khayr bil barako bil isugu dambi dhaafo bil raxmo bil ilaahay naarta nooga xoreeyo cudurkan jirana ilaahay ummadda ka qaado maciishada qaaliga iyo culeysyada faraha badan oo jiray amni daradan ilaahay naga qaado waa bil runtii u baahan inaan ka faa'iideysano khayrkeeda iyo barakadeeda quraan akhris iyo cibaado ilaahay loo dhawaado ummadda oo la kaalmeeyo dadka masaakiinta oo la kaalmeeyo loogu dhawaado waalidka iyo qaraabada la xiriiriyo inaan uga faa'iideysano dhanka kale madaxweynihii hore ee dalka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku hadlay lahjada Maayga ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay iscaawiyaan maadaama bisha Ramadaan ay tahay bil barakeysan barakaysnaaytiyaan dhalati ilaahay dambi dhaaf ninka weela inii ibaado iyo alla ka dhawaasho lanka faa'iideysado la fade qaraabadana la xiriiriya iyo masaakiinta ilaahayna la kabaraya inii ilaahay dalkeena nabad ninka weela madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isagoo adeegsanaya lahjada Barawaaniga ee looga hadlo deegaano badan oo Soomaaliyeed iyo magaalada Baraawe waxa uu hambalyo la wadaagay ummadda muslimiinta ah gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed wa antu wamini nakhim basaraamu ya ramadaani wambalazi bokirani gabagabadii madaxweyne Sheekh Shariif ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya inay qafiifiso bandowga lagu soo rogay magaalada Muqdisho oo markii hore ka bilaabanayay 8 fiidnimo hase ahaatee hadda laga dhigay mid ka bilowda halka saac habeenimo ama 7 fiidnimo bandowga la kordhiyay oo runtii aan aaminsanahay inuu yahay culays magaalada horena u kala xireed bandowa ka jiray haddana saacada hore loo soo dhigay waxa la soo hormariyay hal saac waxa laga soo dhigay hal saac habeenimo waxaana la filayay in la gaarsiiyo 9 ama la gaarsiiyo 3 saac habeenimo sababtuna waxa waaye dad badan oo aan suuragal u ahaan inay afar kuriyooda ku sameystaan jira duruuf kasta ha keento dadkii in laga hor istaago marka inay afur helaan yaa ka dhalanaysa arintaas waa arin runtii shacabka culays weyn ku ah sababtuna waxa waaye dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba gaar ahaan magaalada Muqdisho noloshu waa adag tahay dadka inta ugu badan nolol maalmeedkooda waxa laga yaabaa inaysan heli karin waxa laga yaabaa inay ama qaraabo ama saaxiibo ay ku khasbanaadaan inay la soo afuraan marka in saacad lagu kordhiyo bishii naxariista iyo barakada runtii arintaas arin fiican ma aha waxayna ku tahay shacabka culays nuqdada labaadna waxay tahay dadka xogta waxaan haynaa dadka ayagoo jidka iska socda lugayna inta la qabto in saldhigyada lagu xiro markaas saldhigyada la isku geeyo مثلا 20 qof hal qol la wada geliyo taasna waxay ka soo horjeedaa mabda ay dadku inay kala fogaadaan marka 20 qof oo kala socotay oo qof la arko wajidka iska maray marka isku geeyay hal saldhig laga helo la qadar la hal qof oo qaba cudurka 20 kiiba wada qaadaan waxay u wada qaadaan guriyaha marka 17 saldhig marka habeen walba 20 qof meel la isku geeyo cudurka ay qaadaan arintaas waa arin khatar ah waxayna keenaysaa fiditaanka marka in ayadana la joojiyo oo dadku waxa jira dad noloshooda ay ku xiran tahay shaqo oo laga yaabo inay ka soo baxayaan ba xilligaas shaqo ama xilligaas xilli u dhow ay degan yihiin meel fog marka waxay noqonaysaa dadkii in la gooyo quudkoodii arintaas marka in dawladdu ay dib uga fiirsato